السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعن كسو دوادا مid كمid دروستا كبحا دوكسي 24.com. درسيغاني ودرسيغي ugu horeeyay koorsada higaada quraanka iyo higaada luqadda carabiga farbarashada. درسيغان waxaan ku qaadanaynaa xuruuful hijaa alifbeetada luqadda carabiga iyo quraanka. luqadda carabiga waxay leedahay 28 xaraf. 28 ka xaraf waxa weeyaan 28 ka xaraf waxa hadii lagu daro alifkan wuxuu noqonayaa 29 xaraf. marka labada madrasa way jirtaa. qool dhaxaya waxa weeyaan waa 28 xaraf iyo qool dhaxaya waa 29 xaraf. kuwa dhaxaya 28 xaraf alifka kuma darayaan xarfaha sababtoo alifku waxa la yiri shibana ma noqdo. saan la soconana luqad kasta waxay leedahay shibanayaal iyo shaqal. consonant iyo vowels ay leedahay. consonantar iyo vocalar. intaas ay luqado badan leeyihiin. xarfaha marka asaaska markaanan shaqal lagu darin waxa weeyaan waa shibane. markii shaqalkii iyo shibanihi la isku daro waxayna siinayaan cod cusub ayayna siinayaan. casharada soo socda ayaan ku qaadan dhigaynaa kuna baran doonaa waxa ku saabsan shaqalka iyo shibanaha marka ay isla falgalaan iyo sida loogu dhawaaqayo. laakiin alifku marka waxa la yiri ma qaato shaqal ma qaato isaga laftiisa ayaa wuxuu noqonayaa shaqal ayuu noqonayaa markuu madka kamid yahay oo alifku waxa la yiraahdaa al-alif al-maddiya. sadarta alifku la yaati illa saakinan reebnin u qaataa laakiin fatxa iyo kasra iyo dhamma midna ma qaato. kordhig hoos dhig iyo godaal midna ma qaato. sadarteed ayaa looga reebaa. hadda laakiin darsigan waxaan u akhrinaa alif ahaan baan u akhrinaa. gadaal baan marka insha Allah taala sheegi doonaa haddana alifki iyo hamzada maxaa u dhaxeeya maxaa lagu kala garanayaa. iga daba akhriya. alif ba ta tha jim ha kha dal ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها يا. أنكو عليا مركلة. ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها يا. cashirkan si wanaagsan ha loo soo qaybo ha la qoro ugu yaraan 3 jeer hana lagu celceliyo ugu yaraan 20 jeer.